سميه مقرن صومالي هرتو حكو سكنت حالهم نقول احنا الرجال هالدور كهاي الله سبحانه إلا صورة استمر في عنتها مو قادر محاول مرة سنة قرية مفاق يلا نضرب وش الوقرة أخبار والله وحكو قرن حالات ضلك الصومالي يجي سلام كو أخري وحيرة ما يجي أدوك ما فهمي سفرتي أنا قراني قارب حتى تفترى ما يدين أخري عباد ود سيدة halkan waxaan jeclaan lahaa in Soomaalidu dhan bay naga daawanaysaa moonta halkan markay daawadaan commentiga hoos noogu soo qoran baan leeyahay سبسكرايب كان waxaan ka bilaabaa يلون طلقة dawladdu markii sidii bariga hore say ahayd hadeer say tahay iyo dadku siyaasiyiinta sidii ahaayeen iyo sidii yihiin hadeer waxaan idhi dawladdii dhidibada lahayd dhaxalka iyo khayraadka iyo dhismaha bilicda leelahayd dadkeeduna dhiiranaa dhabtii isku dhaaran jiray dhaayahoodana iska jeclaa ayaa isku dhaartayo maanta bay isdhameeyayo burbur baa dalkii ka dhacay dhiig baa la macaansado ummaddii dhowrsanida lahayd dhuuni baa meel walbaba ka galay bar baa dhulka galay dadkii qaraxyaa loo wada dhigo haldoorkeennii dhammaan ما شاء الله allow dhibka naga dulqaad allow dhiig miiratada dhalinyariya waayeel dhammaan xabaalaha ku daray ka dhowr ummadoo ka qabo adaa ka dhammayn karee dhulkii baaxadda lahaa dhinacyada jabuutiyo ilaa herar iyo hawaas dadkeeda ku dherarsanaa saddex baa dhumayoo ka tegey dhul kaleeta laga dhigay cadaaladdu ka dheer dhimata islaamnimadu ninkii dhiig lagu dhintaa kii dan dhaha sidan xaq maaha dhimanaya waa la kasbaynaya ninkii dhiig lagu dhintaa midkii wax dhacaa dhargo dhaliisha kama dhowrsadaan dhaqaalay u roorayaan dhagahooda wanaag ka xidhan naalmaqayntiman ما شاء الله soomaali dhantaalanto dhabarkay ka jabanto dheelidayo dhulkana may gelin dhibna uma laabna iyadoo dhutinaysa rajada dhowraysa ayay dhibkeeda dhakada ku sidaayo waxay dhur sugtaba dhalaar khayr qabta dawladu way dhalan qabyaaladi dhiman dhaxalka samirkana dhammaan ummaddeenu dheeftiisa way mudan dhabtii kamalado dhibka iyo qaraxyada dhulkayna ka taagan dhiigayguma dogo intay dhagahaygu dhambaalka banaadir ku soo dhacayaan dhaayuhu ma farxaan dhalada wararkeeda markay dhugtaan markaan dhugtoon facebooka dhex maro sawirada dhaawacyada ardayda dhimanaysa dhilada loo sido waalidkii dhabar saaray ilmaha ay dhaleen dhibkana la mareen oo sii dhimanaya arrinta dhakafaarka maxay dhahayaan arrinta dhakafaarka maxay dhahayaan bal dhugo adiguba dhibka nagu fogan miyuusan dhammaanin dhaawac fara badan dhaymo joogta ah dhimasho iska taagan burburka dhismayaasha dhiigaga dhulka buuxshay allow naga dhammee mar qura dhambiilaha waxaa shidaaya khayraadka ceeriin ee dhulkeenna ما شاء الله dawlado u foqoo u dhaartay inay naga dhex shidaan dhambiilo daboocasaana si ay dhamin u dhaxlaan dhulkeenna ka dheefsadaan shidaalkana dhaansadaan qaanana naga dhurtaan tuunbay nagu dhuuqayaan soomaaliya dhiirado dhalinyariya waayeel isku dhinac ahaadoo dhulkana isku geyno dhexda aanu xidhanno dhabtana isku sheegno dhaqaalo sameynoo cirkana kor u dhaafne dhag la jaray ma dhammaado daloolkeedu soomaalina abad ducisoobi mayso dhantada jibada leh hidihi iyo dhaqankuba la dhexal awoowaad hibana way u dhalato caalamkuna dhammaan la dhace goortii nugteen dhaxal maaha dhibaatee dawladdu kolkay dhacday dharbaaxada nagu dhacday dhaaxaynu hurudnaye wixii dhiig low dhammaan dhulkayna ma difaacana waxaad dhunsatiyo waxaad dhisataba dhammaan idilkood malagayaa dhigi way dhammaan adduunyadu dharaar baa la tegayaa dhaqaaluhu wax tarahayn marka aad dhaqaaqadee dhimasho la kulantana dhulka hoose waad geli dadka ruuxa kooxiga dadka ruuxa kugu dhow ama dhalasho kooxiga xabaashaada dhinacyada way dheelitirayaan dhoobay xijinayaan dhagaxyay duldhigayaan waxaa dhaba adduunyadu dhalanteed inay tahay xumaatada ka dhowrsada diintana ha dhinac male aakhira dhammaad ma leh dhibaatiya xanuun ma leh gabow iyo dhaxan ma leh dhantaal iyo dheeri ma leh dhalinyaranimo dhammaad lahayn iyo nolol dhaayaha u roon udgoon iyo raaxo badan runtii aan laga dhargeyn ha dhaafsan adduun ayaamo ahoo dhaxal u dhigo nolosha aakhiree dhalaabka iyo nuur kaloo ilaah u dhameeyey farxadda kii dhowray diintiisa wanaagsan dhaliisha iska moosay dembina aan u dhowaan dhagaha ka fudhaystay hadalka shaydaanka dhabbaha horumarkeenna ku dhiirada soomaaliya dib u dhisa dalkoo ka dheeraada qoloqolo wixii lagu dhiiradaa dharaar un way dhimanayaane ha isdhiibin abidka dhuuxaaga u hor dalkaaga naadir miyaa lagu diiday طبعا aad baad maasatahay ما شاء الله. ما شاء الله oo horta garigaas waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhowr su'aalood maadaama maanta usoo booqatay
Asura Hotel. Asura Hotel oo ku faraxsanaa horta inaad ugu soo booqatid Asura Hotel fursad bay horta tahay inaan ku weydiiyo su'aalo su'aasha ugu horreeyaan ku weydiinay waxa weeye dalku wuxuu kusoo jiray muddo hadeerto walow hadeerto aynan oran karinin waa sidii hore ama runtii isbedel fiican u soo baxay waxaa ku jiray dagaalo qas waxaan ku soo barbaaray laga yaabaa intii halkan joogay yani dawladda iyo qas maxaa haytay qax xabada asa alxamdulillah walow intii ugu dambeysay 10 sano ugu dambeeyay xaalad soo hagaagay maxaad kula talinaysaa dadka iftiinka waddankeena u soo baxay muwaadiniinta wadaniyiinta baan leeyahay dalka u soo baxday madaxda dalka Soomaaliya ee hogaaminaysa dadka dhabar jabka ku haya iyadoo aan la joogin waqti wax la mucaarado dadka maxaa oranay horta hadda akhrisadan bal ugu jiraayo qof waliba way wariyay dib maanta halka qarax ka dhaco ninkii ambulance la soo ordi lahaa ma walba la soo ordiyaa life ku jiraa صح قرأت ما قفل بحوك عبره أو من سوي مو عبره صح قرأت ما على كيسة تشينا هو اللي رأى في اليوتيوب تشيله أو أي باري وحدون كوسو كرنيه سومالي راح عكسه سدن تشيل قرية وتوقفت الناس كي يجي كبروبلم بين هاي السيرة هي لأنه مقن إنه ندعي سنه وحكرا من قرنيه وهي أول هذا ما عارف وحلي عبد الله برشلونة كسر مرعى إلياس اسمه يبغى الميديا وصغار مني أنا بعض الميديا كنت شلون لكن رجع بيت كان لايك سبسكرايب أد بدنا رجع تاني فيلم ما شاء الله ما شاء الله شرف بيته يوم برتو من مسكح لها هاي عرض ذلك الله صعدا ما قرأت وحليلي أرتا هل حد يجمع نور الصوت سومالي فرماتية خيري كلية دي وحوم مقام كرام تقع معنا صوت غرفة قربش واحد ليلة ذاك كذا والله أنا والله سعنا تشوف سمين لأن صوت الله سعنا ما يسوس بس كان عندنا يبون طول سمين لأن لا إلهي من حق العيد هتقول يجمعون ما أنت الصومالي اللي يسوق اللي تسويه أنا رحت يقرأ الله يا سمير بالبنطاه حلكها هي سمين لأن قراية الدولة ده أندرس كنا هي الصومالية يا بني بمدو سيرة من يرى شحاتك صوتك كمان من يرى قاعد الجسام تشوفه صح لأنه محمد الرعوي وسير بالشحادين وسير كوري هدر إنا على الكورة ليش؟ صح ليش الدوان بالبنطاه علم له عن شعره هاي لكن مرة عندنا يرد آسي سويش عاسي صح سأقدر ما حنقول مثل صوم مقدم ونيو درك قلنا ملي قاعد شو قبل ملي بعد أنت راح قرأت ما صح سمعنا لنا وش حتى لي راح قرأت ما صح لكن نقرأ وشو لقى يا بنا الشحاة والله كان حلوة يا ولو وصل صرت كل حد ما بانت الحمد لله يا لكن إن شاء الله ها بليان نستمي كل قف يعني قف قصة وجهي قف قصة حتى هذيك أنا تلقى له عاو أنت بريء له بوين أنتم لما بقول لكم عاو يا سمير ما سمير سيريالتي هذا كان سيريالتي كان كهض هرتو خلنا بيننا بين أنا حلمان هدي مثل بلا مجا على يوم مجا يروح حلمان سمعنا هذا لا مجا عوار طبعا هل ميدون بان وندرن هذا لكن وحنقولها حلمان ذلك سووا شقية لكن سنة شقية dadka hadda joogtay dooska dhig mirad magac iyo maal dadka hadiya xikli mushidi ay ma yani in qofku wixii walba wax ka doono in waxa uu doonayo uu dadka ugu shaqeeyo yaadi wax qof laga أنا سورة مستقبلك محط ما فهمت هذا مستقبلك waxaan danaysaa insha Allah inaan qaliina leadership hogaamiya ما شاء الله برنامج كل حاجة سوي كختم كل سياسة أظن أيه بارك الله